calaamad oo dadku inta badan iska indhatiraan balse noqon karta halis. Waxaan maanta ka hadlaynaa insha Allah tacaala 5 calaamadood hadduu isku arko iska indhatiro ay noqon karayso xaalad khatar lagu wajahayo. Calaamadda ugu horreydo waa miisaanka qofka oo dhaca. Miisaanka wuxuu tilmaam u yahay oo warbixin ka bixinayaa caafimaadka guud ee qofka. Waxaa jira xanuuno badan oo keeni kara qofka miisaankiisa inay hoos u ridaan. Haddaba waa muhiim haddii aad isku aragto miisaankaadu hoos u dhacaya weliba si aan la mid ahayn sidii hore inaad si fiican ula socoto oo aad dhakhtar la xiriirto si lagaaga jeegarayo xanuuno badan oo laga yaabo inay keeni karaan in miisaankaadu hoos u dhaco. Qodobka labaad waa cijiyaha oo isbeddel ku yimaado sida inay yeeshaan dildilaac, sidoo kale in muuqa iyo shakliga ay leeyihiin wax iska beddelo, sidoo kale in mataqaanaa ka soo baxaan waxyaabo cadcad oo kale. Arrimahaas cijiyaha ka soo baxa ee aan hore u lahaa jirin waxay ka dhigan tahay in cijiyahaadu ay ka bixinayaan tilmaan xaalad caafimaad oo jirta. Sidaa awgeed qofku waxaa muhiim ah inuu dhakhtar u tago kadibna la qiimeeyo xanuunada keeni kara ee ku hoos duugan isbeddelka cijiyaha. Qodobka saddexaad waa in qofku uu dareemo xaalad la xiriirta dhanka neefsiga. Tusaale ahaan qofku inuu waxyaabaha qaar markii uu qaato kale inuu naqas uu dhibayo kale, ama haddii waxyaabaha qaar usoo carfaan oo kale naqas inuu qabanayo kale, ama xataa inuu isku arko culays xaggan xabadka ka saaran oo kale. Waxaa laga yaabaa in xanuuno badan ay jiraan ama ha noqdaan kuwa wadnaha ka imaan kara ama kuwa habdhiska hawmareenka imaan kara. Sidaa awgeed calaamadaasi waxay noqon kartaa calaamad aan fiicnayn oo qofkan laga rabo inuu aado dhakhtar uu la xiriiro. Qodobka afaraad waa inaad isku aragtaa kaadi badan oo aan sidii hore oo aad isku ogaan ahayn. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay haddaad kaadi badan isku aragto oo musqulgalkaaga aad u bato, habeenkii dhowr jeer aad soo kacaydo, waxay ka dhigan tahay in kaadidaadu aad u badan tahay. Kaadida inay badnaataan waxyaabo badan ayaa keeni kara. Waxbaa la sheegay inta badan ugu soo horreeya infectionka, sidoo kale sonkor aan qofku isku ogeyn oo kale iyo xataa xanuunada qaar ay ka jira meelo kale ama keliya oo kale ka jiri kara. Sidaa awgeed si loola socdo waxa keeni kara kaadidan tirada badan waa inaad la xiriirtaa dhakhtar. Qodobka shanaad waa inaad dareento xabeeb badan. Haddii aad leedahay xabeeb badan oo hore aan isugu arki jirin, waxaa jira xanuuno badan oo ku dhaca habdhiska hawmareenka, dheefshiidka iyo sidoo kale xataa bannaankan kore ee dhuunta, kuwaasi oo keeni kara in qofku xabeeb u yeesho. Xataa mararka qaar neerfayaasha mara dhuunta geesiheeda ayaa keeni kara in qofku codkiisu isbeddelo. Sidaa awgeed haddaad isku aragto codkaada oo isbeddelay waa inaad dhakhtar la xiriirtaa, waxayna xabeebtaas u noqon kartaa calaamad xanuun kale oo laga yaabo inuu jiro.